kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta midan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu ku eegno aragtida dadweynaha ee ku aadan shirka wada tashiga dawladda Puntland dawaanaha lagu wado inuu ka qabsamo magaalada Garowe horay shirkan waxa uu shaaciyay madaxweynaha xukuumadda mudane Siciid Cabdullaahi Deni 15 Maarch maalinimo Isniin ayaa loo ballansan yahay inuu ka qabsoomo gudaha magaalada caasimadda ee Garowe dadweyne kala duwan ayaana ka aragti dhibtay waxaana kamid ahaa hadallada magacaygu waxa la yiraahdaa Muslim Cabdiruus Xaaji Xirsi waxa kamid ah dhalinyarada ku nool magaalada Garowe ee caasimadda dawladda Puntland haddii aan aragtideeda ka dhibto shirka wada tashiga ah ee furmi doona 15 bishan waxa rajaynayaa inuu noqon doono shirweyne wax miro dhala ka soo baxaan isla markaasna ayaha iyo danaha Puntland looga tashado iyadoo aan Soomaali inteeda kale wax lagu yeelayn waxaan sidoo kale aad iyo aad u taageersanahay shirkaas cidda ka soo qayb galaysa oo dad 500 oo ergaa ku dhow 500 oo qof khalad isku maraaci doonaan waxa rajaynayaa in masiirka iyo danaha Puntland looga hadlo shaqo la'aanta dhalinyarta haysta in looga hadlo waxa weeye kaabayaasha dhaqaalaha u baahan in dib loo dhiso in looga hadlo amniga sugudiisa in looga hadlo iyo xuquuqda federaalka ku leenahay iyadana in meel la saaro oo looga hadlo waxaan rajaynayaa insha Allah shirkaas inuu noqdo mid miro dhal ah oo dhalinyarada iyo guud ahaan bulshada reer Puntland u noqda furihii guush insha Allah sanadaha soo socda waxaan ku qanacsanahay oo taageersanahay shirweynahaas iyo madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Deni iyo ku-xigeenkiisa Axmed Karaash iyo cid walba oo hoggaanka Puntland maanta haysa waxaan ku qanacsanahay hoggaankooda iyo sidii wax u maamulayaan aad baa u mahadsantahay magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdinuur Sheekh Axmed waxaan ku magac dheerahay Shariif Cabdinuur shirkan ka furmi doona sida la sheegay magaalada Garowe 15 bisha hadduu yahay mid wax lagu dhisayo annagu waa soo dhaweynayna hadduu soo yahay mid wax lagu duminayo oo dadka Soomaaliyeed lagu kala geynayo oo dawladnimada Soomaaliya khalkhal lagu gelinayo oo dadka Soomaaliyeed dhib ku ah waxaan leenahay shirkiisa Allah naga kaaf marka koobaad waxaan ugu baaqayaa madaxda arrinta ku hawlan in Ilaahay uga cabsadaan wax dadka Soomaaliyeed dhibaato ku ah oo dadka Soomaaliyeed dhib ku ah oo ay saqaadi kan awal hore culayska hore aan qaadi laayeen inay sakeenin oo aysan argagixiso nagu noqon haddii shirkaas uu shir fiican yahay oo sida loo sheegay wax wada tashi uu noqon doono oo ayaha 23 maalmood wax muddo yar tahay aan dad dhan ayaha looga tashan karin haddana waxaan leenahay shirkaas waan soo dhaweynaynaa wixii ka soo baxa oo macquul ah waa qaadanaynaa wixii dhibaato oo maaragtay dadkan dhibaatadu ragaadisay looga saarayo waa soo dhaweynaynaa waa u jeednaa amniga inuu adkaaday waa u jeednaa dhaqaalaha inuu adkaaday waa u jeednaa dhibaato badan inay waddanka ka jirto waa u jeednaa meesha kale rowga waddanka ka jira waa u jeednaa dadkii in qayb la kala haysto oo dadka Soomaalidu ay wax kala haystaan sida dariska dadkan la nahay oo kale haddii dadka Soomaalidu nabad iyo khayr loo barwaaqo mid uu hooseedahay uu yahay madaxda qalqaalinaysa waxaan leenahay Ilaahayna uga baqa waxa aad afka ka sheegaysaan iyo waxa aad dadka ugu yeeraysaan isku mid ha noqoto haddii sayis arrinta noqon Ilaahay waxa laga magan galaa af iskhilaafsan af iyo ur iskhilaafsan haddii wax dadka ugu yeelaan iyo waxa kala duwanaadaan haddii kala duwanaadaan waxaan leenahay in Allah yuxaasibukum waana ilaa waan xisaabin waana maal marin doona saasaan leeyahay ilaahna ka baqaan leeyahay inta imaanaysan waxa ugu baqaynaa ilaahay darti u hadlaan oo wax dadka ay ugu yimaadaan oo madaxda ugu noqon doonaan oo ay dhahay doonaan xaq iyo xad ugu noqon doonaan inay sida ay tahay u gutaan baan ugu baaqayaa is ilaahay qofna uga baqayn alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Axmed Jaamac Takar degan degmada Garowe caasimadda Puntland shirkan anigu waxaan ka qabaa la qabanayo 15 bishan dawladda Puntland diyaarisay in maaragtay ummadda reer Puntland ay isugu timaado aad iyo aad baan u afaar haddii arrinta laga tashanayo Puntland aad iyo aad baan u taageerayaa laakiin ma ogolin dad kale oo shisheeye gacmaha inayna soo dhex galaan sida dadka mucaaradka ku ah dawladda Soomaaliya annaga waxay nagu tahay inay noo soo maraan maaha waa inay iyagu mucaaradnimadooda cadeystaan Puntland Soomaaliya iyada dhistay iyada hooyo ah ma doonayno annagu dib inaan uga harno ummadda ama gobolada kale ama dalka kale dib uga harno waayo hormoodkii ummadda Soomaaliyeed meesha isugu imaanaysay oo cid walba laga helo waa Puntland sidaa darteed waxaan soo dhaweynaynaa aragtida ku saabsan in Soomaaliya ay Soomaaliya tahay Soomaaliya inay Soomaaliya tahay waxa kaliya oo nadeeqdana waa Soomaaliya oo Soomaaliya madaxweynaha iyaguna waa ugu raacsan yahay gudoomiyaha golaha Puntland Colaad Maxamed Siciid shiga Puntland oo wanaagsan laakiin waa lala soo day hadda ka hor baa la rabay in laga wada tashado yani shirkan iyo shir lamada in la qabto oo laga tashado
ayaha Puntland laga tashado ay ku habboonay hase haddii maanta haday timi waa alxamdulillaah rabbil caalamiin waa guul hase haddii waxa weeye in laga hado masiirka iyo mustaqbalka Puntland laga federaalka ahayd marka sidaas darteed waa in loo baahan yahay in la isugu yimaado siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanka reer Puntland ay yimaadaan kana tashadaan ayaha iyo mustaqbalka Puntland iyo dawladda federaalka ah dawladda federaalka waxa weeye waa xamar bay ku eg tahay xamarna 30 sano wax lagu dhuuraayay afgooyana ma gaarto iyo balcad ma gaarto wixii caalamku u keeno Puntland warkeeda waa iska badaaba marka waxaan u arkaa yani shirkan inuu ka tarjumayo yani ogaansho la'aanta ay koonfurta ay ogeyn wax qabadka Puntland ay ogeyn iyo horumarka iyo meeshay wax gaarsiisay gobonnimadoonkii ilaa iyo saacadan la joogo waxay Puntland u taagan tahay in ay wax ka qabato yani Soomaaliya أول عيسى أحمد وي بسم الله الرحمن الرحيم هدان أركتدي كدولا كديفتو برنامج كانيتو واد وناكسن واد مدان aad soo dhaweynaya waana taageersanahay si wanaagsan inuu shirkaas si wanaagsan u qabsoomo baan rajeynayaa insha Allah bilkariimad baa la yiraahdo anigu magacayga Cabdinaasir Maxamed Xuseen oo loo yaqaan Cabdinaasir British ama Cabdinaasir Arab runtii markaan ka hadlo ra'yigayga ah sidee u aragtaa shirka wada tashiga ee dhacayo 15 Maars runtii waxaan leeyahay soo dhaweynayaa waa shir muhiim ah oo ayaha Puntland wax uu noqonayo taa ayaan leeyahay fikirkayga insha Allah Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaygu waa Maxamuud Diiriye haddaan shirkan 15 Maars meeshan ka dhacayo Garowe haddaan fikradeyda ka dhiibto aniga wuxuu leeyahay shir khaldan wuxuuna ka qaldan yahay shirkan waxa loogu tashanayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo danaheeda waxaana keenay shirkan shir khaldan yahay sanad walba ama dowlad kasta oo noo dhaatay inaga Puntland si dowladda federaalka la leeyahay iskaga dhicay khad ka baxda marka ay shirka wuxuu leeyahay shir khaldan oo waxba ka soo baxayn horumar lagu gaaray waxa laga tashanayaa ayaha Soomaaliya iyo dowladda dhexe si khadka laga saar lahaa waligeena Puntland aan asaas ku soo jir haddana ku soo jirnaa marka anigu waxaan dhihi lahaa shirkan wax ka soo baxayo oo laga gaaray ma jiro guud ahaan iyo gabi ahaan waxa inta ku dhan barnaamijka gaarka aan ku eegnay aragtida dadweynaha ee ku aadan shirka wada tashiga dawladda Puntland ee dhawaanahan ka qabsoomaya gudaha magaalada caasimadda halkaas sida tooska uga daawanaysan waa warbaahinta Tac Media baraha ay ku leedahay Facebook iyo YouTube barnaamijka waxa la socodsiiyay anigoo ah Cali Cabdirashiid dhanka farsamada waxa iga qaabeynayay saaxiibkay Timo Weyn intaan ku kulmano mid la mid ah kan sidaas iyo amaana